hal qisaan inii sheegi niman caddaana oo dalxiistayaal ah xeeb bay marayeen meel xeeb ah xeebtii waxay ugu tageen nin muslim oo dhallinyaro ah oo xeebta iska jiifa badda dhinaceega iska jiifa way kiciyeen waxay ku yidhahdeen meeshan maxaa ku dhigay wuxuu yidhi waxaan ahay kalluumaysto baddaan ka kalluumaysanaya oo khaydkiibaa badda iigu jiro halkana waan ku xidha lugtayda marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi deedna waan lugtaydaa dhaqaaqi waan kici waan soo saaran waan iska karsadaa dhowr xabadoodna waan qaataa reerkaygaan u geeyaa buu ka yidhi way ka naxeen markaas lacag bay iska soo ururiyeen lacagtii bay u dhiibeen lacag aad u fara badan wuxuu yidhi maxaa ka dhigaa waa qiso maal yani waxay ku yidhahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag fahmaysaan baan u malayn shabagaabaad badweynta ku tuuran halkaad 2 iyo 3 maalintii aad qabanayseen 20 baad qaban markaasuu yidhi kadibna waxay yidhahdeen in muddo sidaa u shaqee lacagta yar ururso doon yar baad markaa dambe iibsan doontaa enjin yar baad mooteer yar bay leedahay badweyntaad ku dhaadhici doontaa halka maalintii 20 aad soo qabanaysay 100 kalluun baad soo qaban ilaa 200 oo xabadood markaasuu ku yidhi kadibna markaasay yidhahdeen in muddo sidaa u shaqee magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa halkaasaad markaa ku iibinaysaa dadkoo dhan baa ku baranaya nin caamad waddanka ka noqonaysaa oo kalluunka lagu yaqaano hebel kalluun laba lagu odhan markaas hebelkii kalluunka iibin jiray markaasuu kadibna dhowr sano sidaa u shaqee haye lacagta ururi baanka dhig kadibna laashkan dheereeya ee badweynta u dhacdhaca ayaad iibsanaysaa fadeed annagu xaggeega fadeed baan idhaahna jabuuti fadeed kaabaad iibsanaysaa baddaad ku dhaadhacaysaa لأنه واحد سوق قبنا يسافر كم حبضات بعد سوق قبنا يسافر مالنتي يقولي بخ خيرات بدنا بدنا كجرة مركز ولكدبنا قبل هذا ودن كوردن بعد كفورين يسافر كبرانش بيالله ما ركتاني أتكوي بيسد كلونك ودن كدم كلونك هذه قاسينا مركز ولكدبنا مدرس ده أول شيء هذا نشان سنة اللي حسنا العقد أوري واحد يبسنا يسافر كدم ورشدي سار الدين كسمين يسي markaasuu yidhi kadibna warshadaasi markaa way shaqaynaysaa adduunkaad u kala diraysaa markaasuu yidhi kadibna qasri weyn oo villa ayaad dhisanoo si fiican baad u seexan bay ka yidhahdeen wuxuu yidhi hadda markaad ii timaadeen baad hurdayga kicisayna buu yidhi wuxuu yidhi ma hurdoon baan intaa u maraa buu yidhi soonigii hurday maa imikadan